islaantan halkan waxay u imaaday in ay soo booqato wiilkeeda waardiyan xaggan fadhiya ayaa soo istaagay islaanta ayuu celinayaa wuxuu leeyahay xagee baad ugu socotaa gudaha islaantan waxay u sheegaysaa inay rabto dabaqa labaad waardiyahan ayaa ku dhahay dabaqa labaad ma waxa rabtaa inaad wax soo xado islaantan ayaa dhismay wiilkiga aniga tuugmiye ee wiilkiga ayaan rabaa xafiiskiisa ayaa ku yaal dabaqa labaad waardiyahan ayaa qosliyay wuxuuna ku leeyahay maxaad beent u sheegaysaa ma mudana hooyadiis baa adiga been ayaad sheegaysaa waan ku aqaana tuug ayaa ta waxaad soo xada ay raanaysaa ka tag meeshan ayuu ku leeyahay islaantan ayaa ku dhismay wiilkiga ku sheegay maay fiiskiisa ayaa wuxuu ku yaala dabaqa labaad wuxuu leeyahay anigu waan ku aqaana tuug baata inaad wax soo xad ayaa rabtaa intaan ku garaacan meeshaan iskaga tagay kule islaanta ay kala tooliya islaanta ayaa dhihayso haddii aan wiilkayga waxaan u sheegaya in asi qaldan igula dhaqantay shaqada ayaana adiga lagaa ceelinayaa waardiyihii ayaa xanaaqay wuxuu leeyahay intaan adiga taas samayn aniga ayaa hadda waxaan wacdiga mudanaha haddii oo dhaa aniga hooyadeeda ma ahan ogaaw inaan meeshan kaaga saaray ayuu leeyahay fil iyo laad isla marka wuxuu bilaabay in uu waco wuxuu wacayaa marwadani wuxuuna ku leeyahay islaan ayaa taagan banaanka waxayna sheeganaysaa mudanaha hooyadiis inay tahay wuxuu leeyahay maxaan ku sameeyaa badan ayaa dhiiso mudanaha hooyadiis meeshaan ma imaan jirin maanta maxay kasoo doonta ayay ku leedahay ma bas ayay ku imaaday ayay ku leedahay wuxuu leeyahay may bas kuma imaan way soo lugeystay waxay leedahay waaye maxay ay wadataa wuxuu u sheegay in ay wadato dhar wasaq ayaa ugu jiro boorso wasaqna way wadataa ee hadda maxaan ku sameeyaa marwe ii sheeg meeshaan maka celiya ayay ku leedahay gabadhan ayaa ku dhiisa maya ku soconaya ayay ku leedahay waxayna wiciisaa wiilkeeda waxay leedahay hooyada ayaa banaanka taagan CC camera malfeeri wiilku wuxuu fiirinayaa CC camera wuxuuna ku leeyahay waa hooyada waa inaad soo gelisaa waxaan rabaa inaan la kulmo mideeda kale wuxuu ku leeyahay waardiyaha waa inaad hore igu soo wada gabadhan ayaa meesha kasoo tegaysa waxaa u imaanaysaa islaantani waxay ku leedahay marba igaraal noqsi qaldan ayaa lagu dhaqmay ma ahayn inaad halahan dhan meesha aad taagnaato waxay ku leedahay hadda aniga isoo raac waardiyihii ayaa wuxuu la hadlayaa gabadhan wuxuu leeyahay adiga kaale ma soo waalatay islaantan wasaqda maxaa meesha gulinaysa ayuu ku leeyahay markaas ayay gabadhan ku qeelintahay waxay ku leedahay mataqaana qofka aad wasaqda aad ku tilmaamayso mudanaha hooyadiis ayay ku leedahay mideeda kale mudanaha wuxuu ku dhahay waa adigana gudaha aad soo gashaa saddexdooda way soo raacay waxayna soo galeen gudaha antan wiilkeeda fadhiga ayuu ka kacay markuu arko hooyadiisa wuxuuna ku leeyahay hooyo adiguna ii soo sheegin ayaad soo baxday maxaad ii soo wiciwaysay ayuu ku leeyahay islaantan ayaa dhiisi wiilkeyga waxaan rabay lama filaan in aan kaaga dhigo keeda ay u sheegaysaa wiilkeeda waxay leedahay waardiyahan maanta si qaldan ayay ugula dhaqmay keeda isla markii wuxuu bilaabay waardiyaha inuu ku qeeliyo wuxuu leeyahay waa maxay sida qaldan aad hooyadeeda aad kula dhaqantay wuxuu leeyahay haddii xitaa aadna ka siina hooyadeeda waxaa lagaa rabay inaad ku ixtiraamto da'da maadaama ay kaa weyn tahay ma ahin inaad sidaas kula dhaqanto wuxuu ku leeyahay adiga qaladkaada waxa waaye in aan shaqada maanta aan kaa celiyo qad waan kaa saaraya ayuu ku leeyahay waardiyihii isla markii wuxuu bilaabayaa inuu raaligelin weydiisto mudanihiisa wuxuu ku leeyahay igaraal noqo qalad ayaan galay ma ahin inaan sidaas kula dhaqmo mideeda kale aniga ma aan ogan inay hooyadaada ee tahay waardiyi ay usoo jeesan islaantan xaggeeda wuxuu ku leeyahay marwa igaraal noqo si qaldan ayaan kula dhaqmay saasna ma ahin inaan kula dhaqmo ee wuxuu ku leeyahay iga celi ayuu ku leeyahay shaqadii oo iga ceelin haddii aan shaqadaan ka tago reerkayga xaggee baan ka masruufaya ayuu ku leeyahay islaantii ayaa soo jeesanaysa wiilkeeda ayay la hadlaysaa wiilkeeda waxay ku leedahay iska daa shaqada waxbaha ka celin ayay ku leedahay wiilkii ayaa dhahay hooyo haddii adiga aad sidaas garaysatay qada kama celina adiga madaxaada ayaan ku sii daynaya ayuu ku leeyahay